waa cajiib alcajiib waana mid ka mid ah horumarka ganacsi ee dunidan ka socda. waxaa dhowaan dalka Shiinaha markii ugu horeysay taariikhda laga furay maqaayad casri ah oo hab casri ah loo sameeyay. maqaayadan waxaa laga dhex sameeyay diyaarad kuwa rakaabka qaada oo ay soo saartay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka. maqaayadan casriga ee diyaaradda laga dhex sameeyay ayaa waxaa fikirkeeda lahaa ganacsade u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Li Liang. Master Li ayaa maqaayadan ka furay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. ganacsadahan u dhashay dalka Shiinaha ayaa sheegay in diyaaradan laga dhex sameeyay maqaayada ay ku kacday lacag dhan 5 milyan oo lacagta Yuurada ah. ganacsadahan ayaa horaantii sanadkii tagay iibsaday diyaarad shaqada ka fadhiisatay oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha dalka Indonesia, taasi oo ku soo iibsaday 5 milyan oo lacagta yuanka ay laga isticmaalo dalka Shiinaha, taasi oo u dhiganta 750,000 oo dollarka Mareykanka. haddaba maqaayadan casriga ee diyaaradda laga dhex sameeyay maxaa ka mid ah adeegyada ay leedahay? maqaayadan ayaa leh adeeg walba oo laga helo maqaayadaha caalamiga ee loo yaqaan 5 star-ka, waxaana ka helaysaa cunnada noocyadeeda kala duwan sida cunnada fudud iyo kuwa culus. sidoo kale maqaayadan casriga ee hoteelka laga dhex sameeyay ayaa leh goob baakin ah oo gaadiidka la dhigto iyo qayb carruurta lagu ciyaarsiiyo. qiimaha halkii casho ee laga cuno diyaaradan maqaaxida laga dhex sameeyay ayaa qofka caadiga waxaa ku kacaysa lacag dhan 200 ilaa 300 oo yuanka dalka Shiinaha, taasi oo dollar ahaan u dhiganta 30 ilaa 45.